warjaalayaal soo dhawaada waa sidee goobihii lagu dagaalamay hubkii dawladda xiriyihii dawladda cadaado iyo dhuusamareeb oo hubkii yaalay la jabsaday oo la dhacay gurigii qoorqoor oo loo dhacay xog baan idinkaga hayaa 6 nin oo xalay saqdi dhexe iyo naag Allah u naxariistay oo meydkooda ay weerdhac ku wareejisay ciidamada dawladda waa nimankii fiidiyowga laga soo duubayay oo Saleebaan ah ayaa la geeyay magaalada Cadaado oo maanta lagu aasay halka qoriyuhu waa isku fooraraan xaaladdu aad bay u adag tahay hub fara badan ayaa xalal la jabsaday xiriyo badan oo Cadaado ku yaalay iyo dhuusamareeb waa la weerara xaaladahaas aan rabaa inaan ka warrabo mowqifkayga ku aadan hadafkaygii hore xogihii ugu dambeeyay goobihii lagu dagaalamay hubkan la dhacay caynku yahay baraha bulshada inaad ku aragteen waa laga yaabaa jaalayaal soo dhawaada goobihii lagu dagaalamay yaa jooga waxyaabahaas oo dhan baynu eegaynaa waxaan ka codsanaynaa xogtan xog sahlan maaha hubkii dawladda ayaa maleeshiyaad loo gacan galiyay si toos ah loo hubeeyay beesha Habargidir hubkii dhuusamareeb yaalay waa la dhacay oo waa la jabsaday furahana waa loo fududeeyay hubkii Cadaado yaalayna xalal la bililqaystay oo xirada dawladda ku jiray baqaaradii kaydka oo hubka waa la jabsaday maalmahan waa tii Habargidir ay lahayd shaamashuutaraan nugula laayo hubkii dawladda la dhacay baa naloo adeegsaday waxaa laga shaqeeyay in hubkii dawladda ee shabaab loogu talagalay in gacantooda la geliyo oo loo fududeeyo arrimahaas aan rabaa inaan ka hadlo qasaaraha iyo dhibkii shalay dagaaladii dhacay soo kala gaaray labada beelood meesha lagu kala sugan yahay xaaladihii ugu dambeeyay qorshaha iyo waxa la filayo baan rabaa inaan idiin soo koobo waxaan ka codsanayaa waliba si gaar ah qof kaste oo daarooda ama dhiig daarood uu ku jiro inuu muuqaalkan si sheer gareeyo oo uu leeg saaro oo xogtan uu fageeyo xog sahlan ma inuu fageeyo baan ka codsanayaa jaalayaal soo dhawaada YouTube-keena ku soo biira page-ka ku soo biira qodobka ugu horeeya oo aan u hormarayo waxa weeye xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay waa ay degantaa laakiin qoryuhu waa isku fooraraan gurmadyo fara badan baa labada dhinac beesha weerdhaceed iyo dhinacaan Habargidir Saleebaankaba gurmadyo fara badan baa soo gaaray saacad walba iyo mar kasta waxa laga cabsi qabaa in dagaal kale uu qarxo sidoo kale 6 nin iyo haweeney oo meydkooda ay ka carareen ciidamadii Saleebaan ayaa laga soo qaaday goobihii Saleebaanku ay ka kaceen oo ay weerdhacdu qabsatay ayaa saaka laga qaaday waliba ciidanka dawladda ayaa weerdhacdu u tagay oo ka codsaday inay ku soo wareejiyaan meydadkii beesha Saleebaan ay shalay ka carareen 6 nin meydkood iyo haweeney muuqaaladooda waa aragtay waxa laga yaabaa inaad baraha bulshada ku aragtay ayaa lagu wareejiyay meydkooda Cadaadana lagu aasaya oo aas lagu sameeyay maanta Allah u naxariisto halkaasaan uga gudbayaa xaaladda goobihii dagaalku uu ka dhacay sidoo kale waxaan rabaa wax yar inaan ku noqdo dhimashada dhinacan Saleebaanka iyo Habargidirta waxaa la ii sheegay in dhimashadoodu ay gaarayso 13 inay geeridooda gaarayso awal 8 meelahaas la hayay 6 oo lagu daray 12 meelahaas ilaa 13 inay tahay sidoo kale dhaawacu tira beel weeye oo diyaaradihii maanta Cadaado yimid dhaawac bay qaadeen oo Muqdisho u qaadeen dhinacan kale ee weerdhacda 2 nin baa ka geeriyootay dhaawacoodu ilaa 7 iyo 8 meelahaas weeye intaasaan ku soo koobayaa xogta qasaarihii iyo xaalka deegaanadii lagu dagaalamay warku isma saarna xalay maxaa ka dhacay magaalooyinka dhuusamareeb iyo sidoo kale magaalada Cadaado waa tafoolxumadu Cadaado waxaa la jabsaday dhowr iyo 10 guri oo hub uu ku xareysnaa oo ay lahaayeen ciidamada dawladda oo ay lahaayeen saraakiil sidoo kale waxaa la bililqaystay oo gudaha loo galay gurigii uu Cadaado ku lahaa madaxweynaha Galmudug hubkii ku jiro oo dhan waa laga baxay sidoo kale dhuusamareeb xiradii ku taalay meel kayd ahayd oo hubka uu ku xareysnaa iyo rasaastu
beesha habargidir waxay ka biliqaysteen hubkii yaalay gacantooduna gala rasaas aan caadi ahayn oo loogu talagalay in lagu xoreeyo goobaha ay argagixisadu haystaan ayaa la jabsaday oo gacantooda gashay iyo hub nooc walba leh taas waxaa fududeeyey rag mas-uuliyiin ah oo ama dowladda ha ahaadaan ama saraakiisha ha ahaadaan dib baa looga xisaabtamaya laakiin waxaan idiin sheegayaa dagaalkaanu waa dagaal safayna waa dagaal loogu talagalay in beesha sida iyo beesha mareexaanba galmudug looga tirtiro waxaan rabaa marka wixii dhuusamareeb ka dhacay iyo cadaado iyo hubkii la biliqaystay yaa ku eedaysan waxaan rabaa inaan halkaan idinkaga sheego ninka la yiraahdo qoorqoor oo madaxweynaha galmuduga qoorqoor awal tunku ii saarnaa laakiin waa dhiga wax kasta aniga waxa iiga weyn qadiyada mareexaan baa iiga weyn wax kasta waxa iiga qaalisan qadiyada mareexaan baa iiga qaalisan qoorqoor waa madaxweynihii galmudug qoyskii uu asagu ka soo jeeday ayuu xal ka keeni waayay oo nabad ka keeni waayay nin caynkaasna bulshada reer galmudug nabad iyo horumar midna ma gaarsiin karo sidoo kale asagoo beeshiisii xal ka keeni waayay ayuu haddana wuxuu xakamayn waayay hubkii gacmihiisa ku jiray ciidamadii staafka u ahaa baa dagaalamayay hubkii gacantiisa ku jiray baa lagu dagaalamayay guryihiisii baa saanada lagala soo baxa taasi waxay ka dhigan tahay dagaalka laftirkiisa inuu ku qaracsan yahay oo uu beeshiisa garab leeyahay sidaa awgeed hadday tahayna annaguna beeshayada ayaynu garab la nahaa oo nin walba reerkiisa weeye taa halkaasaan rabaa inaan uga gudbo hubkii loogu talagalay dowladda in dalka lagu xoreeyo haddii uu maleeshiyaad gacantooda galay oo ay maanta ku dagaalamayaan sidoo kale waxaa la ii sheegay in madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo qoorqoor ay xalow wada hadleen oo qoorqoor ay isfahmi waayeen oo uu madaxweynuhu kala hadlay qoorqoor sababta gurigiisa u geysay in hubkii lagala baxo xeriyihii ciidamada la weeraro oo hubkii yaalay la jabsado ayaantii dhaweytana waa iyadii hubka mar kasta maxaa hubka dowladda maleeshiyaadka u gacan geliyaa lagu yiri adigu halkaa waa la isku maandhaafay waxaan doonaynaa marka in dadkeenu ay baraarugaan oo ay ogaadaan hadday dowlad federaal tahay iyo mid galmudugba inay isku kaashanayaan dagaalka beesha mareexaan dhan walba iyo jaho walba looga soo qaaday inay iscaawinayaan isgarab taagan yihiin xogta hubka horta waa la qarqarinayaa xeryo badan baa xala la weeraray oo saanad iyo hubba lagala baxa maanta u malayn maayo saleeban waa haystaa hubkii ay ku dagaalami lahaayeen iyo rasaastii ay ku dagaalami lahaayeen 30 sano oo soo socda hal maalin hal habeen buu gacantooda galay reexaan marka waxaan rabaa reer mareexaan inaan u sheego waristaaga oo kaca oo jiifka ka kaca oo baraaruga oo ogaada in la doonayo in qaaradda aad ka degan tihiin galgaduud in nili ka tirtiro in lagu midoobay in ay ka wada shaqaynayaan ii sheeg muxuu ahaa galmudug iyo sidoo kale dowladda federaal dagaalkii shala dhacay dirna waa ku jidhay habargidir oo dhanna waa ku jidhay waxay la dagaalamayeen weerdhac bay ahayd mareexaanka meelaha farfadhiya reer diinigan faraha badan oo meelaha taagtaagan waxaan leeyahay dagaalka waxaad ka dhowrataan horta male waxaad ka dhowrataan male daraad maalmahan baraha bulshada waa ku arkayseen niman saleebaan oo cabanayo ku haya hubkii la dhacay baa nugula qumaadaya shaamashuutaraan nugula laynaya cabashay dirsadeen oo dowladii cabasho u dirsadeen oo galmudug bay cabasho u dirsadeen cabashadoodii baa laga jawaabay oo waxa la yiri furayaashan in siinaynaayee kaydadka iyo xeryaha ciidamada dowladda waa nilii balnaynayaaye wax xoog ku dhacay iska dhigo wax booba idinkuna booba waa nil ka waraabinaya soo shala mareexaan baabuur ma boobin idinkuna xeryihii dowladda booba oo nimanka iska dhacshalay tabtaas lagu yiri sababtoo ah xerooyin ciidan oo ma aragtay la ilaaliyo oo amnigoodu uu sugan yahay in maleeshiyaad intay galaan waxay rabaan ay kala soo baxaan taliyayaashu inay beelahooda hub u keenaan in hubkii loo waday argagixisada in cadaado lagu dhacay guryihii madaxweynaha in la dhacay taasi waxay ka dhigan tahay
annagu mareexaan hub kama celin karno oo hubkaa waa dhaceen idinkuna na dhaca oo kuwa aan haysanno naga dhaca raggana iska dhiciya in la yiri weeye taasay u egta waxaan leeyahay ciidankan la soo diray oo hadda la soo diray ayaguna berri bay dhabarka inay kaga dhufanayaan mareexaan oo midooba isku xirnaada wada shaqeeya ninkii jiifow kac maalin saleebaan baa la soo kicinayaa maalin cayr maalin sacad maalin dir baa la soo kicinayaa maalin waxaa la soo kicinayaa beelo kale oo aanaan aqoon waxaan waa la adeegsanayaa waxaa lagu shiray oo lagu bahoobay in qaaradan nagala tirtiro qoorqoor oon u qabnaynin oday ah oo dowladnimada ka shaqaynayo oo reer galmudug isku wadi kara dee guryihiisii baa la dhacayaa reerkiisina waa ka adkaan waaye nin sidaa carruurtiisii nin ceshalla muxuu reer galmudug u taraya wallaahi liibaan shuluqaas aan la dagaalamayey oon u qabay nin balaayo hurinayo ninkaasaaba dhaamaba qoorqoor sababtoo ah asagaa dagaalkii dhacaba nabad ku baaqayo oo miidiyaha taagan oo nabaday ku haya isagaasaaba dhaama saakanu fariinna ma soo diro nabad ha la joojiyo ma ku dhahayo reerkiisii ma ceshanahayo ninkaanaaba la qaataa oo war nabaday ku haya jaalayaal muuqaalkan sii sheergareeya leegna la dhaca wixii deegaanada ka soo kordhana halkaanaad ka daawanaysaan ku xirnaada annaga qadiyadda mareexaan baa naga weyn mareexaannimadaana deeqda ninkii mareexaan dad u ana waa tilmaamaynaa kii aan dad u ahayna ummadda fartaan ugu fiiqaynaa anugu afhayeenkii beeshaana wax badan baan oga siyaasadahan la socdaa meel walba taleefon baa iigu rakiban xalam markii hubkaa la bililiqaysanayey raggii bililiqaysanayey yaan qadka kula hadlayay daqiiqado yar baan ku ogaaday wax kasta oo galmudug ka dhaca waa ka warqabaa nin kasta oo mareexaan dimin daabiyeynahayo oo dhib ka shaqaynahayo oo balaayo hurinayo waa oga war ninkaan farta idinkugu taagana masiibuu soo wadaaya iska jira kii aan inii sheego qayrkiisana dee qayr buu wadaa intaa waxaan duulinaynay qoorqoor baan duulinaynay mar hadduu reerkiisii ka adkaan waayey gurigiisii hubkii yaallay ka adkaan waayey ciidamadii difaaciisa iyo istaafkiisii iyo walaalihiisa ay ka dagaalamayaan oo ay weerdhac la dagaalamayaan dee annaguna weerdhac baan difaaca la gelaynaa ay am wegardhac dhalay oo indhagaduudan oo halkaa qorigu u suran yahay oo ma aragtay loo qaso xabadda baaruudda loo qaso sharaab ahaan u cabba baana laandheere dhalay oo cirkaa fiirinahayo oo wegardhacana hadda laga bilaabo furintaan taaganahaba ciddii dantooda ka shaqaynayso iyo ciddii danta mareexaan ka shaqaynayso ayaan garabkooda ah warjaalayaal muuqaalka sii sheergareeya youtube-ka ku soo biira halkaasaan ooga tegayaa